السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتا قيمها قدرينتا إنغا مدن ku xiran Himo channel kusoo dhawaada. waxaan rabaa in aan warbixin yar idinka siiyo arrin murugo badan oo ka dhacday magaalo la yiraahdo Godin Labe ee hoos tagta gobolka Galgaduud. dhacdo aad u murugo badan oo ka dhacday Galgaduud, gacmaha iyo lugaha ayaa laga xiray waana la bireeyay Caaisha oo 11 sano jir ahayd. Caaisha Maxamed Shanle oo muddo 15 maalmood eheladoodu baadi goobayeen ayaa saaka meydkeeda la helay. Ehelada Caaisha ayaa sheegay in meydka gabadhaani la helay deegaanka Cayn oo qiyaastii 15 kiiloomitir u jira magaalada Godin Labe. gacmaha iyo lugaha ayaa laga xiray waana la bireeyay. rag dhagax qodanayay ayay wax u soo ureen. markii ay tageen waxay arkeen meydka oo god lagu dhex riday, ayay tiri mid ka mid ah qoyska Caaisha. waxaa kale oo sheegeen ehelada gabadha in habaryarteed oo la noolayd loogana shakiyay in falkan foosha xun ay geysatay. laamaha amniga ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa goobta gaaray, gacantana ku soo dhigay haweeneydii lagu eedeeyay arrinkan foosha xun. qoyska ayaa intaa raaciyay in ay haweeneyda laga shakisan yahay gabadhani yar u waday deegaanka meesha lagu bireeyay dhowr mar oo horena ay ka sheegatay gabadhan yar. Caaisha Maxamed Shanle waxay ahayd 11 sano jir ku noolayd deegaanka miyiga fog ee Firxad la yiraahdo oo hoos taga magaalada Godin Labe ee gobolka Galgaduud. waxaa la waayay 22 bishii Juun. waa saqiir aan dambi lahayn. Caaisha Maxamed samari iimaan Allah ka siiyo qoyskii eheladii ay ka geeriyootay.